dowladdii Jarmalka ahayd caawa waxay qaaday tallaabooyin ay ku dhiira waayeen dowladaha Carabta. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Jarmalka waxa uu yiri laga bilaabo caawa ilaa iyo amar dambe ma jiri doonaan hub aynu ka iibin doono Israa'iil. Sababtu waxay tahay tacadiga iyo gaboodfallada loo geysanayo dadka ku nool magaalada go'doonsan ee muddaba dagaaladu ay ka soconayeen. maantana golaha kooban ee wasiirada Israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay si buuxda ula wareegayaan. Tallaabadan markii ay dowladda Jarmalku ku dhaqaaqday caawa dowlado fara badan ayaa afka furtay. waxaana ay si weyn uga soo horjeesteen tallaabooyinka Tel Aviv ay qaaday. dowladaha qaarkood waa kuwa saameyn ku leh gobolka Bariga Dhexe. waxaa ka mid ah Canada, waxaa ka mid ah dalka Jarmalka oo joojiyay rasaastii ay ka iibinayeen. waxaa sidoo kale ka mid ah dowladaha la yiraahdo Finland iyo sidoo kale Belgiumka iyo dowlado kale oo Yurub ah. waxaana yiraahdeen haba yaraatee ma jiraan wax laga iibin doona oo huba Israa'iil. Netanyahu-na waa ka jawaabay. dhinaca kale dadka arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah xubnaha xildhibaanada baarlamanka labada gole ee dalka Mareykanka oo sheegay tallaabooyinkaasi inay yihiin kuwa si weyn uga hor imaanaya karaamada dunida iyo jiritaanka aadanaha. lamana aqbali kara bay yiraahdeen tallaabooyinka maanta ay golaha kooban ee wasiirada Israa'iiliyiintu ay ku dhaqaaqeen. sidee loo fasirayaa arrintan? maxaa Carabta helay? maxay ilaa iyo hadda go'aamo waaweyn u soo saari laayihiin? Masar ayaa hadba dhinac wacaysa, mar Qatar bay wacaysaa, mar Sacuudiga, mar dalka Jordan, meelo kala duwan ay wacayaan. laakiin la yaabka waxa uu yahay waxaan dhanba waxa la leeyahay Carabta qaybo ka mid ah ka shaqeeyay. waxa Cabdifitaax Siisi uu sameynayana waa ilmada iyo xaaska, sida qubarada qaar oo arrimahan caawa u faaqidaya ay tilmaamayaan. war baan iska dhihi doonaa inta barnaamijka aan wada joogno oo aan ku faaqidayaa saaxiibayaal. waxaan sidoo kale eegi doonaa haddii aadan awood lahayn oo dalka awood badan aad isgashaan kuna tashanayso nin kale waxa uu leeyahay, waxaad wajahi doontaa mid ka mid ah falxumooyinka ugu weyn ee adduunka taariikhda la diiwaan geliyo. bal ka waran haddii aan ku iraahdo Volodymyr Zelensky, hogaamiyaha dalka Ukraine ee waddankiisa colaaduhu ay ka socdaan. waxaa laga saxiixayaa qaybo ka mid ah waddankiisa inuu dalka Ruushka u ogolaado, gaar ahaan gobolka Leeda Kherson ee aadka iyo aadka muhiimka u ah. hase ahaatee dowladda Ruushku waxa ay doonayaan meelo ay ka mid tahay Odessa inay la wareegaan, magaalo dekad leh oo badda madow saaran, isla markaana ujeedadoodu ay tahaba istiraatiijiyadda dalkaasi Ukraine uu leeyahay oo reer Yurub ay aadka ugu taageerayaan in meesha laga saaro. haddaba 24 saac la soo dhaafay wakaaladaha wararka sida Bloomberg oo kale waxay leeyihiin waxa la helay xog ku saabsan qorshe weyn oo ay isku waafaqeen Trump iyo Putin oo ka dhana dalka Ukraine. weliba arrimahaasi marka la sameynayo waddan ka mid ah Yurub lagu sameynaya. sidee wax u jiraan? caawa adduunyada nin kastoo xoog badanba inbuu goosanayaa, iyadoo dadkii arrimahaasi ku abtirsanayay ay aad u jaban oo iska masaakiin ay wax ku eegayaan. yana waan dul mari doonaa haddii Ilaahay saamaxo. intaasi waxaa raaci doona oo aan ku dari doonaa inta aan faaqidaadan idila joogo akhyaaray arrinta la xiriirta Israa'iil oo ku dhawaaqday in ay qaarajiyeen madaxii sirdoonka ee ururka xisbiga ee gudaha dalka Lubnaan jooga kadib duqeyn ka dhacday maanta gobolka loo yaqaan Nabatiya oo ku yaala Lubnaan. haddaba ma dhabbaa warkaasi? maxay ilaa iyo hadda ka yiraahdeen kooxda xisbiga? arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli siyaasadda waddanka Lubnaan ay aad u kacsan tahay. amal iyo xisbiga labadaba ay ka soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada ka soconaya Beirut. Cabdicasiis Barrow ayaan ahay. jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay. waa 8 Agosto sanadka 2025 ayaa qaaday mid ka mid ah tallaabooyinka caawa ugu la yaabka badan oo dowladaha qaar ay si weyn u bogaadinayaan kadib markii waddankaasi uu ku dhawaaqay in uu joojiyey hubkii uu ka iibinaya Israa'iil sababo la xiriira tallaabooyinka maanta ay qaadeen.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka ayaa tilmaamay in tallaabadan ay ka dhigan tahay mid lagu badbaadinayo karaamada aadanaha iyo sharafka guud ee dunida. sida ay qoreen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee dalka Jarmalka, ra-iisul wasaaraha ama hogaamiyaha guud ee dalka Jarmalka ninka la yiraahdo Friedrich Merz ayaa ku dhawaaqay ilaa iyo amar dambe in aanu jiri doonin hub laga iibinayo Israel iyo dowladda Netanyahu uu hogaamiyo. waxay ku yiraahdeen arrintani waxay ka dambeysay kadib markii go'aan caalamku uu ka anfariiray maanta nidaamkaasi uu ku dhawaaqay, taasi oo ka dhanaa magaalada go'doonsan 17 sano inay qabsadaan isla markaana halkaasi ay ka sameeyaan daadgurayn dad iyo dhibaatooyin sida wararka la helaya ay qeexayaan. laakiin dowladda Jarmalku waxay tiri inagu ma doonayno inaan qayb ka noqono foolxumadaasi, sidaa daraaddeed ma jiraan wax huba oo laga iibin doono ilaa iyo amar dambe Netanyahu iyo dowladdiisa. sidaas ayay war-saxaafadeedka ku sheegeen. tallaabadani waxaa ku daysaday dhowr qaran oo kale ama dowladood oo u arkaya inay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan oo ay muhiim tahay in arrintaasi la isku waafaqo. midowda Yurub iyo Belgiumka oo kale ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn uga hadlay. waxaa la yidhi Belgiumka ayaa maanta si cad u sheegay deegnada buuxda ee la xiriirta qabsashada magaaladaasi ee Israel. wasiirka amuraha dibadda ee Belgiumka ayaa laga soo xigtay inuu yidhi waxaan cambaaraynaynaa go'aanka Israel ee ah go'doominta ama duulaanka lagu qabsanayo magaaladaasi. sidoo kale waxa uu si cad uga soo horjeednaa buu yidhi qorshaha lagu doonayo in daanta galbeed lagu daro nidaamka Netanyahu. sidaas ayay doodo iyo hadalka ay soo bandhigeen ay tilmaamaysaa. wasiirka amuraha dibadda ee Belgiumka waxa uu leeyahay waxaasi wax la aqbali karo oo aan isku waafaqi karno maaha. sidoo kale Antonio Costa oo ah madaxa golaha midowda Yurub ayaa sheegay qorshaha Israel ee qabsashada magaaladaasi waxa ay dhibaato ku tahay buu yidhi xiriirka midowda Yurub iyo sidoo kale nidaamkaasi Netanyahu uu hogaamiyo, waana tallaabo jebinaysa buu yidhi heshiisyadii hore iyo mabaadi'dii sharciga ahayd ee caalamiga. haddaba cadaadisyada Jarmalku maxay ka dhignaan karaan? marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga bulshada ee dalka Jarmalka ee loo yaqaano SPD oo ka mid ah xulufada dowladda ayaa si cad u muujiyey in la gaaray waqtigii Jarmalka uu tixgelin lahaa cunaqabatayn la saaro nidaamkaasi. sida uu sheegay baa la yidhi Semitie Meller oo ah ku-xigeenka hogaanka guud ee xisbigaasi. Meller waxa uu sidoo kale sheegay in la hakiyo heshiisyada siyaasadeed ee u dhaxeeya midowda Yurub iyo Israel, iyo sidoo kale in Israel la qiimeeyo xadgudubyada dhinaca sharciga ah ay geysanayso. tallaabadaasi markay dhacdo kadib, dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin Canada iyo qaar ka mid ah wadamada adduunka ayaa si weyn uga soo horjeestay, waxaana ay tilmaameen inaanay aqbali doonin tallaabooyinka maanta golaha Israel ay meermariyeen uu ra-iisul wasaare Netanyahu uu soo jeediyey. waxaa sidoo kale warbixinta ay intaa ku daraysaa in dowladihii carabta caawa uu afka joogda gabay, hase haatee dowladda Masar iyo Qatar ayaa goor dhoweyd soo saaray tallaabadaasi inay deedayaan. horey boqorka labaad ee Jordan iyo dowladda Masar hogaamiyaheeda General Sisi ayaa maanta ula hadlay ninka la yiraahdo Mahmoud Abbas oo ah hogaamiyaha maamulka Falastiiniyiinta. haddaba maxaa arrintan ay ka dhigan tahay qaadeen golaha amniga ee wasiirada Israel? sidaad la socoteen